buuggan horta waxa akhrisan kara qof kasta oo Soomaaliya oo luqadda Soomaaliga yaqaana ama luqadda Soomaaliga wax ku akhri kara waxa kaloo akhrisan kara qof kasta oo horumar ka shaqeeya qof kasta oo horumar ka shaqeeya ama horumar dugsi ha noqoto mid qoys ha noqoto mid mashaariicad horumareed ha noqoto mid maamul ha noqoto marka la sameynayo mashruuc horumarineed sidee buu noqonayaa mashruuca horumarintu mid waara adiga gacantaada ka hara dadka ama cidda aad u samaysay ay leeyihiin deegaankii iyo dadkii iyo dhaqaalihiiba saacidaya muddo dheerna sii jiraya oo soconaya qaybta labaad waxay ka kooban tahay waa qaybta magaca buugga sidata yoolasha horumar waara ku jirta oo yoolasha horumar waara waxa weeyaan qorshihii 2015 adduunyadu isku raacday ilaa 2030 2030 agenda ayaa la yiraahdaa waxay ka kooban tahay 17 yool 169 bartilmaameed 232 halbeeg بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوري وهذا داوديال ميلك ستكون سجنتهين يحل كستو أيدين تهاي ومركلة يبرنامج كلن كغرفينتا يبوغا ديادو قيمة بدن وبوغ علمية هذا ونشعل هاي إنانو إسلا غرفينو ونحق بدن وداقنو أنجا ينك بوغاس تعب بدن قليي عبد الرحمن عثمان قاس وحكوسوي مقالة هرقيسة waxa uu runtii aad iyo aad tacab badan u geliyay dhigane uu bixiyay yoolasha horumarka waara oo af Ingiriisiga ku noqonaya sustainable development goals marka buugaas buu hal tabiyay tacab badan geliyay ilaa xadna u fududeeyay in af Soomaali buuga lagu akhristo oo lagaga bogto marka Cabdiraxmaan waa nin wax bartay waxaanu shahaadada labaad ku haystaa aqoonta horumarka imikana waa musharax isla waxaanu musharax u yahay sustainable development goals and diplomacy ayuu ku diyaarinay insha Allah taala PhD taana ilaahay ha gaarsiiyo waana nin aqoonta bulshada uga faa'iideeyay marka Cabdiraxmaan baan soo dhaweynayaa soo dhawow gaas waan dhawaad shukr maadsani dola farxad bay inoo tahay inaynu ku kulanno buugaas anigoo qaydinka ku cunay waagii aanu soo bixinba farxad bay ahayd inaan moogtahay isagoo buugaasi yani markii ugu horreysay waraaqa inaan akhriyey waxoogaa yaroo sixitaankana ka qayb qaatay hase yeeshee waqti badan baa kasoo wareegtay buuggii hadda wuu diyaarsan yahay Cabdiraxmaan gacanta ku hayaa dadka wuu tusi karayaa buugaas weyn marka buugaasana Cabdiraxmaan kala sheekaysanaya waana dhigana xambaarsan aqoon runtii wax badan dadka iyo dalka iyo ummadaba taraya dadku markay si fiican loo dhugto ee laga faa'iideysto xogta ku jirta Cabdiraxmaan soo dhawow waxaan jecelahay intaynan uu ka yar duwan yahay dabcan buugta kale sida uu qoran yahay buugani waa buug aqooneed marka waxay u baahan tahay waa aragtiyo iyo halbeegyo marka u baahan in lagu hakado ay dadkana taa jecel in la sii wadaago hase yeeshee xogta hore buugga inaad waxaabihii kugu dhaliyay iyo in xogtaasan jecel marka hore inaad dadka u guud marto marka adigoo soo dhawaanaya waxaad xoogaa sharaxaada naga siisaa maxaa adiga kugu riixay inaad u qala qaatay inaad buugga hal tabiso ama turjunto waad maasantahay cabdishakuur saaxiib aad baan kaaga mahad celinayaa runtii inaad caawa igu casuunto inuu waxoogaa sharaxaada ummadda la wadaago oo ku saabsan buugga yoolasha horumar waara sida aad sheegtayba buuggu waa buug aqooneed waa buug inta badan ka hadlaya afkaar iyo qorshayaal iyo nidaamo iyo tallaabooyin horumar lagu sameeyo buuggani wuxuu wakiil u yahay runtii fikrad weyn oo qarniga 21aad adduunyada ka socota oo la yiraahdo horumar waara ama horumar joogtaysan ama sustainable development oo adduunyadu imika 30 sano ugu dambeeyayba ay ka wada sheekeysanaysay ama ay ka lahayd ajendayaal guud ay ku wada xiriidho tusaale sustainable development ama horumar waara waxa uu adduunyada luuqadda lagu wada xiriiray iyo qorshayaasheeda ku soo biiray horaantii 70aadkii kadib dabeetana wuxuu noqday fikrad koraysa aakhirkii 2000 ayay adduunyadu samaysatay yoolal ay iyagu leeyihiin oo ay ku wada xiriiraan oo horumarkooda ay ku halbeegaan yoolalka waxaa la oran jiray yoolalka ku kasano 8 yool bay ahaayeen
waxay ahaayeen oo shaqaynayeen 2000 ilaa 2015 2015 dabeetana qiimeyn baa loo diray in yoolasha adduunyadu bal ay mar labaad eegto maxaynu ku guulaysanay maxaynu ka gaabinay maxaynu u baahannahay inaynu mustaqbalka wax ka bedelo halkan anugu ka soo raacayna runtii markii aan diyaarinayay shahaadadii labaad ee horumarka halkaas baan runtii aniga iyo fikradiiyo sii gabagaba taagan oo qorshaheedii hore oo gabagaba taagan yahay iskaga xidhannay dabeetana waan sii dhuuxay waan sii lafaguray waan sii dhex galay waxa runtii anigu mar walba aan ka turjumaya wax weeyaan waaqica anigu aan ku noolahay ee ummadda Soomaalidu ay ku nooshahay iyo dadkaygu sida ay u arkaan waxan adduunyadu ay garanaysaa ay ku wada socoto iyo inaynaan qayb ka ahayn meesha loo geediga yahay halkaa markii marayso 2014 waxaa la saaray khubaro adduunka ka kooban wadamada kala duwan oo ururiya maxaynu 15 sano ee soo socda aynu adduunye ahaan aynu gaadhnaayo aynu rabnaa inaad gaadhaan shucuurta la weydiiyey intaa waxaan fiirsanayay bal ummadda Soomaaliyeed meel lagu weydiiyey oo lagaga qayb geliyey fikradda inay qayb ka noqdaan oo iyaga laftooduba ay noqdaan dad waxa mudnaanta u leh ama hortebinta u leh ku darsada iyadoo tii aanay dhicin ayaa 2015 bishii la soo gaaray sagaalaad bisha sagaalaad baa markaa lagu daahfuray New York oo 190 wadan ay inta New York isugu tageen ogolaadeen qorshahan oo ay yidhaahdeen qorshahani wuxuu noo noqonayaa gundhiga qorshayaashayada iyo mudnaantayada 15 sano ee soo socda halkan fikradda habeenkaa markaa adduunyadu aad bay wada hadashay hadallo waaweyn oo culus baa laga jeediyey subaxii markii aan soo toosay magaalada Soomaaliyeed aan ka daawanayay waxa runtii muuqday halkay dadkaygu mashquulka ku yihiin iyo halkay adduunyadu geediga u tahay inay laba qaybood aad u kala duwan ay tahay oo dadkeenu wax yar oo misqaala darratina oo ay 60kii sano ee soo ugu dambeeyayba ku mashquulsanaayeen ay weli kusii mashquulsan yihiinoo halka adduunyada lagu geedi yahayba aanay fikrad ka haysanin taas baa waxay igu dhalisay inaan markaa fikraddii af Soomaali u bedelo waxaanay ku bilaabantay runtii maqaalo yar oo kooban maqaalada bishii tobnaad ilaa bishii 12aad 2015 ayaan joornaal ku qoray 19 maqaalo oo istaba socda waxaan ku sharaxayna fikraddan iyo inagu sidaynu ula jaan qaadi karno dad fara badan oo fikraddii akhriyay waxay codsadeen in fikraddan meel ay kasii tixraacaan in loo sameeyo oo ay iyaga laftoodu ay ka helaan maadaama fikraddii u dhadhantay oo dareen ku abuurtay kabacdina buug yar oo kooban ayuu noqday buuggii oo internetka iska wareego oo PDF ah kii waxa ka soo noqotay inay dadkii noqdeen buuggii ugu horreeyay malaa ay ka akhriyaan wax horumar ku saabsan ama luuqadda horumarka oo af Soomaali ku qoran oo ay si fudud ugu fahmaan tii waxay keentay markaa inaan buug yaroo kooban markii in dad badan ay kasoo falceliyeen inaan buug yaroo kooban ka dhigo buuggaa markaa kooban ee 2018 daabacay ayaa keenay inay hay'ado fara badan oo dawliya ama hay'adaha caalamiga ama kuwa bulshada rayidka in ay isticmaaleen dukumeedkii oo tababarro u isticmaaleen oo ugu talagaleen inay dadka ku baraarujiyaan aniga lafteyduna aan ka qayb galay tababaraha ay bixinayeen hay'aduhu qaar ka mida oo ay ku jiraan runtii baarlamaanada Soomaalida qaarkood markii aan dhuuxay ee aan dhex galay aan dadkii la sheekaystay waxay soo baxay laba shay labadaasoo laga jawaabo mooyaane buuggan iyo fikraddan iyo curintan cusubi ma shaqaynayso oo inooma shaqaynayso marka innaga la eego dhaqankeenna iyo meesha aynu ku noolnahay iyo sida aynu u fikirno iyo fikradda aynu adduunyada ka haysanno taas baa markaa kaliftay buuggan imanka oo aan u bixiyey yoolasha horumar waara oo noocan ah oo edishankii saddexaad ama qaybtii saddexaad ah inaynu soo saarno fikradda horta halkaas bay ka timi buugganaynu markaa iminka dul taagannahay maasha allah marka waa salaankaad soo fuushay 2015 ayaa iminka halkaa kula maraya oo buuggaasina uu isbedelay 2 jeer iminka daabacadda soo cabdiraxmaan ereyga waara marka waxaa laga yaabaa in maladood baa kaaga soo noqotay horumar waara marka bal sharaxaad yar halkaa ka yar bixi matalan waayo dadka qaar baa waxay dee ay u baahan tahay in loo sharxo waara waxaa loo oran karayaa moogta weelahunbaa waara marka halkaa dad ku yar noqoto sharaxaad ka bixiso
bal waxoogaa guud marku samee. kolleyba waa sax weeye kolleyba marka la dooranayo ama erey xulasho la samaynayo maadaama oo luuqadeena aynu buuggan ku qornayo soomaaligu aanay lahayn akaademiyad marjacoo loo noqdo oo erey bixintii iyo wixii marka saxdo oo inoo diyaaro hadda samaysan aanay lahayn wuxuun bay noqotay in aanana laftaydu ku ijtihaado oo dabeetana erey fudud dadku si fudud u qaban karaan inay magaranaysaa ay u xusho erayo fara badan baa markaa miiska yimi ereyga waara lagama hadlayo kii jiritaanka ilaahay iyo wixii adduunyada ka dambeeyey wixii sii jiraya lagama hadlayo sababtaa development baa laga hadlayaa ereyga development baa wuxuu qaydayaa waaridan in laga hadlayo development wuxuu soconaya inta dadku nool yihiin marka runtii ereygan wuxun baa lagu talagalno erey koobsanaya macnihii sidoo kalena si fudud qofku uu u fahmi karo una qabsan karo erayada waxaa la macnaa joogtaysan waxaa la macnaa madaxale waxaa la hadhaaga reebaya waxaa la macnaa macyaal fara badan oo noocaas ay yeelan kartaa luuqadan aan buugga ku qorayna maadaamay luuqad farsamo u badan tahay oo horumar luuqadiisii laga hadlayo waxaynu runtii ku jira erey bixinno fara badan oo buugga ku jira oo aan ugu talagalay in goordhow markii akaademiyada iyo cid soomaaliyeed oo buuggan luuqadan taqaano oo fasirta la helo in ama la isku raaco waxna laga bedelo mid walbana sharaxaad baan hoosta ugu sameeyey waara lafteedu waa kamid dabcan waxaan buugga waan arkay tacab badan ayaa runtii ka muuqda oo runtii aad iyo aad baad uga hagar baxday intii aad qoraysay caqabadaha kaa hor yimi مثلا حاجة erey bixinta marka la eego waa runtaada waa buug aqooneed aqoontuna erey bixin bay u baahan tahay si ay u fududaato waxaad qorayso dadkuna ay si fudud u fahmi karayaan oo aanu culays ka iman marka erey bixinta caqabadaha ka hor yimi maxaa ugu waaweynaa runtii marka turjumadu marka hore turjumad aad samaynayso turjumadu caqabadeeday leedahay haddii aanad luuqad qaniya wax ku turjumahaynin marka aad shaygu u baahan tahay inaad fahantana iyada lafteedii waxay u baahan tahay iyaduna dhibaato kale oo dee ama tacab kale oo gaara waxa ii fududeynaya runtii luuqadda inta badan ay xogtani ku qornayd ingiriisi bay ahayd aniguna marka rabo shaygii inaan soo turjumo oo aan luuqadii la soo helo waxay ii fududeynaysay aqoontii gaarka ahayd ee aan u lahaa luuqadda carabiga oo runtii iga dhigaysay marka hore inaan muraayadda carabiga kusoo eego markan carabiga kusoo eego kadib inaan markaa la imaado taydii soomaaliga ahayd oo haddaad eegto akaademiyadii soomaalidu berigii turjumaadda la samayn jiray af soomaaliga la qoray waxaa la odhan jiray ereyga aad turjumayso horta marka hore hal erey oo soomaaliya u hel haddaad ereygaa u weydo waxaad u raadsanaysaa laba erey oo isku xidhmo oo soomaaliya oo aad isku dhejiso labadaa erey haddaad u weydo luuqadda carabida ka soo baxaa luuqadda carabida haddaad ka soo weydo erey u dhigma ereygan ood ku turjunto ood af soomaaliyeyso ereygan laftiisa isaga turjun oo soomaaliyeed isaga soomaaliyeed erey soomaali ahaan u qor isaga soomaaliyeed isaga soomaali ahaan marka qaacidadaa hore halkan taale waxay fududaynaysaa in aad shaygii markaad soo qaado markiiba aanad turjumaad saarin ee inaad luuqadii kala soo barbar dhigto dabeetana aad nuxurkii soo fahanto nuxurkii dabeetana aad sidaa ku keento runtii waqti badan bay iga qaadatay faham badan bay iga qaadatay isku rakibid iyo isku keenkeenid fara badanna way iga qaadatay waxaad arkaysaa markaa goortii buugga koowaad uu soo baxay in ay ahayd 2018 2018 ilaa 2015 waqti dheer baa u dhexeeyey taaba runtii dagaal joogtaa iyo dadaal joogtaa ayaan ku hayay aakhirkii markaa 2018 kii koowaad baa soo baxay kan imaka aynu haynaano soo baxay 2020 buu soo baxay oo markaa 2020 ilaa 2018 dib baan haddana u dirsay oo waxaan kusoo kordhiyey qaybo fara badan oo buuggan 3 qaybood buu ka kooban yahay kii horena hal qayb buu ka koobnaa marka qaybta dhexe ee buuggan oo weliba qayb ahaana ayaa qaybta 18 soo baxday ka kooban ما ويدينتا واديغا بوقتي صدح قيبود بو ككوبن yahay طبعا waan arkay yaad ugu tala gashay Cabdiraxmaan oo meelo dadka caadiga u akhristaan ma xaween dawladaha ma hay'adaha ma goobaha waxbarashada iyo aqoonta يعني ugu tala gasho koobaad in buug ka faa'iideystaan shukran waad mahadsantahay shukuro buuggan horta waxa akhrisan kara qof kasta oo Soomaaliya oo luuqadda Soomaaliga yaqaana ama luuqadda Soomaaliga wax ku akhri kara waxa kaloo akhrisan kara qof kasta oo horumar ka shaqeeya
qof kasta oo horumar ka shaqeeya ama horumar dugsi ha noqoto mid qoys ha noqoto mid mashaariiceed horumeed ha noqoto mid maamul ha noqoto markaa kasoo bilow qof kasta oo soomaaliya buuggan horta wuu akhrisan karaa weliba luuqadda aynu ku qornay marka la eego iyo sidaynu dhaqankeena ugu tollay iyo suugaanteedu waxay ku siinaysaa qofka soomaaliga markuu buuggan akhriyay inaanu qaloonin uu u arko inuu deegaankiisii mar walba luuqadii marba mahmaah baa ka hor imanaysa ama gabay yar baa ka hor imanaya dabeetana wuxuu u noqonayaa wuxuu isagu akhrisan karo si gaara buuggan cidda jaangoysa mashaariicda horumarinta ama dabagasha ee maamusho ee kaantaroosha ayaa buuggan u anfacaya oo ay ugu horeeyaan hay-adaha dawliga dadka ka shaqeeya hay-adaha dawliga ah oo usii kala qaybsan hay-adaha fulinta kuwa sharci dejinta iyo kuwa maamulka intaas inay buuggan fahmaan dabeetana mashruuca ay maanta go'aaminayaan jaangoynayaan in uu yeesho astaamihii ka dhigaya mashruuc waara oo horumara sababtoo ah maanta intaa ay soomaalidu xornimada haysatay hal mushkiladoo ka mid a mashaakilaadkii ay markay xornimada qaadatay haystay kamay gudbin waayo su-aashaasi waxay keenaysaa inaynu idhaahno ma ishaynu ku eegaynaa khaldan ma sidaynu u fikeraynaa wax ka sii yihiin halkay ka xidhmi laadahayoo waa kii qaasim lahaa 1964 sidii bay dabagoosi u tahay haradii doolood marka ilaa maantana waa dabagoosi sidii bay ducaha aqaladii uga daloolaan ilaa sidii bay maanta uga daloolaan marka waxaan u baahan tahay maxay degmo ka mida degmooyinka soomaalidu degtaa ay biyo uga qabeeli weyday hadday xaraabnayn lixdankii halkay ka xirmilaadahay marka qofka taa jaangoynaya ayaa la rabaa isagoo raacaya astaamaha halkan ku qoran in uu fahmo mashruuca horumarineed sidaa loo diyaariyaa sidaa dadka loogu sheegaa sideebaa adigu looga dhex baxaa sidee buu u noqon karaa waxa dadku leeyihiin oo ay ilaashadaan marka dadkaasay mas-uuliyadda badan runtii saaran tahay dadka jaangooya mashaariicda horumarinta ayuu buuggan kusayaan si fiican baad runtii u sharaxday waxaan jecelahay si guud cabdiraxmaan oo inaad guud mar ku samayso saddexda qaybood waxay kala yihiin iyo nuxurka ay kala xambaarsan yihiin yani si yaroo guud inaad guudmad yar ku samayso buuggan imikaaynu hayno yoolasha horumar waara weliba qaybta saddexaad waxay ka kooban tahay saddex qaybood sidii markii hore aan carabka ku dhuftay qaybta koowaad waxay ka hadlaysaa horumar joogtaysan waxaynu uga jeednaa marka la samaynayo mashruuc horumarineed sidee buu u noqonayaa mashruuca horumarintu mid waara adiga gacantaada ka hara dadka aadna cidda aad u samaysay ay leeyihiin deegaankii iyo dadkii iyo dhaqaalihiiba saacidaya muddo dheerna sii jiraya oo soconaya si aad uga gudubto adiguna inaad mashruuc kale oo kaa kasii dambeeya aad u marto marka kaasi qaybta koowaad waa aqoon guud waxaa ku jira tallaabooyin waxaa ku jira waxyaaba la tixgelinayo sideebaad markaa mashruucii u dhisan garaynaysaa sideebaad dhinacii bulshada uga eegaysaa dhinacii dhaqaalaha sideebaad uga eegaysaa dhinacii deegaanka iyo bey'addana sideebaad mashruuca uga eegaysaa iyo sidaad uga eegaysaa dhinacii maamulka iyo maamul wanaagii mashruuca sideebaad uga eegaysaa marka qaybtaas waa qaybtii guud waa aqoon guud qaybta labaad waxay ka kooban tahay waa qaybta magaca buugga sidata yoolasha horumar waara ay ku jirtaan oo yoolasha horumar waara waxa weeyaan qorshihii 2015 adduunyadu isku raacday ilaa 2030 agenda ayaa la yidhaahdaa waxay ka kooban tahay 17 yool 169 bartilmaameed 232 halbeeg haddaynu markaa kala dhigdhigno yoolku waa halkii loo socday tusaale caafimaadka adduunyadu hal yool ayay u samaysay oo yoolka saddexaad yoolku waa halkii loo socday yoolkii loo socday intaasoo geedi baa la guurayaa ama intaasoo tallaabo ayaa la qaadayaa si halkii loo socday loo dego marka tiina waxa loo sameeyey bartilmaameedyo 169 bartilmaameed waxa weeyaan maxaynu ku garanaynaa inaynu soconno iyo inaynu taagannahay okay bartilmaameedkii si loo garto oo isaguna wax la isla garto uu noqdo waxa la sameeyey halbeegyo halbeeg waxa weeyaan in haddaynu rabno maanta inaynu guurno 1 mayl maxaynu ku garanaynaa inaynu maylkii guurnay marka maylkay wixii lagu cabirayay ayaa isaguna meesha ku qoran marka qaybtaa saddexaad ee yoolasha horumar waara waxay ka kooban tahay 169 bartilmaameed iyo 230 halbeeg iyo 17 yool yool kasta waxaynu raacinay xaashi xisaabaada oo baseline la yidhaahdo oo ah halkii laga dhaqaaqayay si maalinta 2030 loo gaaro
loo kala jaro halka maalintaa la taagan yahay oo boqolley oo la yidhaahdo halkaasaynu ka soo dhaqaaqnay halkaasaynu maanta joognaa macnaheedu waxa weyn intaasaynu horumar samaynay macnaheedu waxa weyn maynaan dhaqaaqin macnaheedu waxa weyn dibdhac baabaynu samaynay marka xaashida xisaabta oo af soomaali ku qoran qofka soomaaliga ee fahma isku taxallujiya uu si fudud u fahmi kara adduunyadu halkay taagan tahay ayuu runtii ayaa ku jira yool kastana waxa raacsan qayb geeska afrika aan ugu talagalay kay ka taagan yihiin iyo sidee bay u gaari karaan oo falanqayn guuda qaybtaas waa qaybta dhexe qaybta ugu dambaysa iyaduna buugga way ku cusub tahay deegaamiin baan u bixiyey deegaamiin waxa weeye waxaa iga soo baxday markii qaybtii hore buugga iyo intii hore la sheekaysigii 3 sane hore qofka Soomaaliga inay ku adag tahay inuu fahmo yoolasha horumar waaro oo uu u haysto qorshe qaramada midoobay leedahay oo ay tahay inay mashaariic ku bixisay iyagu maalgeliyaan deetana wuxuu qoonaya wuxuu can weeyaan dee yaa maalgelinaya maadayda mashaariicdii la qoranayo proposaladii meeye proposal uma baahna deegaamintu waxay u baahan tahay in aad adigu isku tashato oo aad u aragto qorshe adiga kugu yaalla oo aan cid kale u oolin dabeetana adigu aad maal gashato adduunyadu wixii markaa kaa gaabta in aad kala xidhiidhood ku tiraahdo anigu qarashkayga intaasaan kula baxayaa halkaasaan u socdaa mudnaantayda intaasaan ku haystaa hortabintayda saasay igu kala dhigdhigan tahay waxaas aniga priority ii ah intaasaan maal gashan karaa intaa kale laydinku iga caawiya yoolka 17aad ayaa dhigaya luuqadii iyo farsamadii iyo sidii lagaaga caawinayay iyo sidii aad ugu soo dhigaysay iyo sidii laysu afkarinayay marka qaybta u dambaysay deegaamintu waxay runtii iyaduna tilmaamaysaa tallaabooyinka la qaadayo hadday noqon lahayd in dadkaagii aad wacyi geliso institutionkaagii iyo hay'adahaagii inaad diyaarsato in aad ummadaadii u sheegto inaynu guurayno oo dhaqaaqayno oo aynu meel heblaayo u soconno oo aynaan taagnayn iyo farsamooyinkaad isticmaalaysay iyo siyaabihii looga warbixinayay oo sanad kasta bisha 7 adduunyadu New York way isugu tagtaa halka qaramada midoobay taallo oo waxa laga sheekaystaa yaa horumar sameeyey yaa wax wacan qabtay oo lagaga daydaa yay mushkiladii la soo diristay oo xalliyey ama ay taagan tahay oo hadday xalliyeen xalintoodii adduunyada kale ay ka barataa marka sanad kasta halkaasaa lagaga sheekaystaayo tiro wadamo ah ayaa soo bandhigta horumarkoodii markaa sidee baad horumarkaa u soo bandhigi kartaa sidee baad u diyaarin kartaa sidee baad u jeedin kartaa sidee baad adduunyada ula wadaagi kartaa waxa ka jawaabaya qaybaha ugu dambeeya ee buugga waxaan is leeyahayna haddii tallaabooyinkaa la raaco qofka ama stateka markan diyaariye inuu statekaasi noqon karo ama waddankaasi uu noqon karo waddan adduunyada ka muuqda oo ma garanaysa ay wax kusoo kordhiyey aad iyo aad baad mahadsantahay cabdiraxmaan maasha allah si fiican baad runtii xog fiican oo qiimo badan baad bixisay